madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro ayaa si rasmi ah looga diiday inuu booqdo magaalada Tel Aviv ee caasimadda Israa'iil. wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil ayaa warqad degdeg ah gaarsiisay xafiiska madaxweyne Cirro waxaana loo sheegay in booqashadiisu aysan muhiim ahayn. haddaba maxaa hadda khilaaf ah oo soo kala dhex galay Israa'iil iyo Soomaaliland waan kula wadaagi doonaa. sidoo kale qodobada kale aan ku soo gudbin doono waxaa qayb ka noqon doona ciidamo hubeysan oo la wareegay amniga madaxweynihii hore ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. beesha habar awal hadda waxa ay taagan tahay amniga Muuse Biixi Cabdi kuma aaminayno beesha Garxajis waan kula wadaagi doonaa. waxaan kale ku soo gudbin doonaa suldaanka guud ee beesha Warsangeli oo sheegay in tuulada Shidan iyo tuulada Waqaadiriya ay degto beesha reer Sheekh Isxaaq taasi oo dabcan liddi ku ah in beelaha dhulbahante iyo Warsangeli aysan degin halkaasi. warkan oo la yaab ku noqday dhulbahantaha iyo Warsangeliga laftirkiisa ayaan kula wadaagi doonaa. qodobadaas iyo macluumaadyadii kale ee nagu soo kordha ayaan saaxiibayaal idiin faahfaahin doonaa ee soo dhawaada. haddii taa markii kugu horeysa ku soo biir waxaad heli doontaa wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo mar walba halkan aan ku daabacno aragtidaadana qaybta commentiga ee noogu reeb. waxaa ku bilaabaya qodobka noogu horeeyo oo ah mid degdeg ah. sida aan ogaaday ama aan helay warqad qarsoodi ah oo loo diray xafiiska madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro ayaa lagu sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil ay warqad toos ah gaarsiisay Soomaaliland taasi oo ku aadan in Cabdiraxmaan Cirro xilligan uusan iman karin Tel Aviv oo hoobiyaal ay ku socdaan. taa beddelkeedana la sheegay in booqashada Cabdiraxmaan Cirro xilligan aysan muhiim ahayn. warka Tel Aviv waa uu cad yahay yacni khilaaf miyaa jira ma arrimaha duqeymaha dartiis ayaa ninkan loo baajiyey. warbixintan ayaa rabaa inaan si fiican kugu fahansiiyo ee la dhammaysa muuqaalka. dabcan waxaad ogeydeen in Israa'iil iyo Soomaaliland ay is aqoonsadeen oo dhinaca Israa'iil aqoonsi ay ka timid Soomaaliland ay tiri Israa'iil waan la shaqeynaya. qodobkaas hore baad u ogeydeen waa iga xasuusin uun. hadda Cabdiraxmaan Cirro waxaa la leeyahay wuxuu damcay inuu booqasho ku tago magaalada Tel Aviv ee caasimadda Israa'iil laakiin warqad si qarsoodi ah loogu diray xafiiska Cabdiraxmaan Cirro ayay warbaahinta Soomaaliland qaarkood heleen. warqadaas aan helay qayb kamida waxa ay si adag oo la hadlaysa Cabdiraxmaan Cirro waxaana lagu leeyahay mudane xilligan munaasab ma aha booqashadaadu sababtoo ah arrimo waaweyn oo galka Iiraan la xiriira ayuu ku mashquulsan yahay ra'iisul wasaaraha Israa'iil. booqashadaada annaga ayaa kugu soo wargelin doonaa. weliba waxaa la isku hayaa habka iyo maamuuska loo qaabilayo Cabdiraxmaan Cirro. ma garoonka diyaaradaha Tel Aviv ayaa looga hortagi doonaa? ma roog cas ayaa loo dhigi doonaa? ma booqashadiisa ayaa la qarin doonaa? mise heer wasiiro oo kooban ayaa loo diri doonaa? yacni waa waxa xataa muranku uu ka taagan yahay oo Cabdiraxmaan Cirro leeyahay marba haddaan tagayo Tel Aviv waa in loo soo dhaweeyaa sida Donald Trump loo soo dhaweeyo iyo madaxda kale. arrinkaas waxaa la sheegay inuu ka carooday agaasimaha maamuuska xafiiska Netanyahu taasi oo la sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland toos loo gaarsiiyay warqad ka timid wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil laguna sheegay in Cabdiraxmaan Cirro booqashadiisu xilligan aysan munaasab ahayn. yacni luuqadda loo adeegsaday warqadana ku qoran waa mid adag oo dabcan ku tusinaysa in dhinacyadu ay sii kala fogaanayaan oo xaaladdu ay gaartay meel oo sahla. sida laga soo xigtay saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka sirdoonka Israa'iilna waxay sheegeen in sababa amni xilligan ra'iisul wasaaraha Israa'iil uusan qaabili karin madaxweyne walba ha ahaadee laakiin warqadda qoraalka ku qoran ama luuqadda ku qoran haddii ay jilicsan tahay waa meesheeda laakiin warqadda qoraalka ku adag waa mid adag oo dabcan si weyn u taabanaysa Cabdiraxmaan Cirro oo aad moodid inuu ka niyajabay in mar uu tago Tel Aviv roog cas loo dhigo loona soo dhaweeyo sida ra'iisul wasaaraha Ingiriiska midka Jarmalka madaxweynaha Mareykanka iyo madaxda adduunka ee booqata magaalada Tel Aviv. khubarada arrimaha la socota haddaba waxay leeyihiin xaaladdu haddii halkaa marayso Israa'iil iyo Soomaaliland waa ay kala dhimanayaan. warqadan haddii uu wax ka og yahay ra'iisul wasaaraha Israa'iilna xaaladdu faraha ayay ka bixi doontaa. waxay wararka iyo macluumaad ku leeyihiin dhowrkii bil ee la soo dhaafay oo tan iyo markii aqoonsiga Israa'iil iyo Soomaaliland uu dhacay ee la is aqoonsaday Soomaaliya ayaa qaaday tallaabooyin dheeraad ah oo culays lagu saarayo dhanka Tel Aviv sida si lamida culays lagu saarayo dhinaca Soomaaliland. taas waxay keentay ayaa la leeyahay in ra'iisul wasaaraha Yuhuudda uu hoos u dhigo xiriirkii dardarta ku socday ee uu la lahaa Soomaaliland. wararku waxay intaa ku darayaan
in aysan wax kale isbedelin laakiin ay u badan tahay dhanka cabdiraxmaan cirro inay wax walba caadi ka yihiin laakiin dhanka ra-iisul wasaaraha yuhuudda ay wax iska bedeleen taasi oo dabcan ku tusinaysa in labada dhinac heshiis aysanba awalba ku ahayn qodobada laga wada hadlayo iyo midba midka kale qaabka oola macaamilayo taasi oo ku tusinaysa in xaaladdu awalba aysan ahayn mid caga badan ku taagan waxay ku soo kordho qodobkaas waynoo wararkeena dambe markana qodobadeena kale ciidamo hubeysan oo la sheegay inay ka tirsan yihiin beesha habar awal ayaa la soo werinayaa in ay la wareegeen amniga madaxweynihii hore ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi guriga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa waxaa la sheegay ciidamadan oo aan wax diriis ah wadan ama diriiska lagu yaqaan ciidanka Somaliland aan wadan ay tageen halkaasi kadibna ciidankii halkaas hore ugu sugnaa ay yiraahdeen qoryaha markay ka dhigeen la sheegay in ciidankan ay la wareegeen amniga madaxweynihii hore ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi waa nin ka soo jeeda habar awal waxa ay wararkay macluumaadku tilmaamayaan kol hore in isagu uu si hordhac u codsaday inuusan ku kalsooneen ciidanka hadda ilaaliyo oo badankood ah ciidamo ka soo jeeda beesha Garxajis xogta la helayo sidoo kale waxay tilmaamaysaa in beesha uu ka dhashay Muuse Biixi Cabdi ay il gaara iska saareen amniga madaxweynihii hore iyagoo shakhsigan u arka mid muhiim ah isla markaana muhiim u ah in cadaadis la saaro madaxweynaha hadda xilka haya cabdiraxmaan cirro iyo sidoo kale Muuse Biixi dhowr jeer bay kulmeen tira 4 jeer mise 5 jeer meelahaas ayay kulmeen waxyaabaha ugu badan ee laga wada hadlay waa in hab qabiil ah aan loo beegsan beesha habar awal waa in sidaas si lamida jibwaaweynta beesha Garxajis ay joojiyaan ganacsiga ay ku haystaan magaalada Hargeysa oo ay ku dulminayaan beesha habar awal iyo qodobo kale oo muhiim ah sidaas si lamida waxaad xasuusataan mar uu Muuse Biixi Cabdi u safri lahaa Imaaraadka Carabta in lagu rasaasiyay garoonka diyaaradaha magaalada Hargeysa halkaas waxaa la sheegay ciidamadii rasaasta furay in la xiray laakiin dib dambe laga soo daayay maadaama ay noqdeen ciidamo qabiil ahaan ka soo jeeda beesha la yiraahdo Garxajis xogta la helayo sidoo kale waxay tilmaamaysaa in bilihii la soo dhaafay ay jireen aragtiyo la xiriira in ciidamo gaar ah lagu wareejiyo amniga madaxweynihii hore laakiin waxaad moodaa in beesha habar awal ay ciidamo la soo degdegtay oo guriga Muuse Biixi ciidamo la dul dhigay taasi oo dabcan ku tusinaysa inaysan jirin wax kalsooni ah oo labada dhinac isku hayaan sidaas lamida Muuse Biixi Cabdi xataa kalsooni kuma qabo ciidanka beeshiisa waayo wuxuu aaminsan yahay tuhun ah in la shirqooli karo oo isaga ay naftiisa galaafan karto taasi oo dabcan hadda uu ka warwareegayo oo uu leeyahay alleele xaaladdu sidaas iguma haboona waxay ku soo kordho qodobkaasna waynu arki doonaa saaxiibayaal qodobkeena ugu dambeeyana wuxuu noqonayaa suldaanka guud ee beesha Warsangeli wuxuu si cad u sheegay hadal la yaab ku noqday beelaha Warsangeli iyo dhulbahante hadal naxdin ku reebay beeshiisa oo ah in deegaanada kale ah waqaadiriya iyo tuulada shidan ay degaan beesha Reeshaq Isxaaq hadalkaasi wuxuu noqday hadal la yaab ah oo aysan marna filayn marna qalbigooda ay islahayn kuma soo dhacayo beesha Warsangeli waxaa la sheegay in hadalkaasi ay ka caroodeen madaxweynaha beesha Warsangelina waxaa la leeyahay warbe soo saari doonaan oo ay ku diidan yihiin hadalka suldaankan u janjeera dhinaca Somaliland iyo Puntland suldaanku Somaliland iyo Puntland lacag ka qaata taasi cid diidan ma lahan 20,000 ilaa 30,000 oo dollar ayuu bishii ka helaa labada dhinac in labada dhinac uu la qaraabtana dabcan danta ayaa ku kalifaysa laakiin in suldaankii guud ee beesha Warsangeli ama suldaankii guud ee Hartiba aan dhahe uu yiraahdo wax la aqbali kara ma ahan taasna dad badan bay ka hortimi tuulada shidan waxaad ogtiin in lagu laayay asgar fara badan oo ka tirsan beesha Warsangeli iyo ciidamada dhulbahante markii dambana la sheegay in ciidamo halkaasi loo diray oo ciidanka Soomaaliland halka ay iskaga bixeen laakiin aragtida ah in tuulada waqaadiriya iyo sidoo kale tuulada shidan ay degaan beesha la yiraahdo Reeshaq Isxaaq ayaa dabcan waxay ku tusinaysaa in odaygu xaaladiisa ay ka dartay oo hadallada qaar xataa uu haleeli la yahay maadaama dad badan ay aaminsan yihiin in khaladaadka suldaanku ay soo laabteen suldaanku toddobaadkii la soo dhaafay wuxuu tagay magaalada Ceergaabo wuxuu la kulmay odayaal dhaqameed beesha Warsangeli iyo kuwa dhulbahanta ah wuxuu u sheegay in uusan raali ka ahayn dagaalkii ka dhacay tuulada waqaadiriya iyo tuulada la yiraahdo shidan haddana wuxuu leeyahay labada tuulo waxaa dega oo rasmi u leh beesha Reeshaq Isxaaq taasi oo dabcan la yaab iyo ama ka ku noqotay dadka yaqaano suldaanka oo ay leeyihiin malaha suldaanka wax ka weyn wax uu reerkiisa siistay ayaa loo ballan qaaday
oo ah dhaqaale xoog iyo xeeladba waa lagaga joojin doonaa. si walbaba ha ahaatee tuulooyinka Waqaadiriya iyo Shidan xaaladoodu waa ay degan tahay, laakiin markaad eegtid dhinacyada abaabulka ka socda halkaasi xaaladdu waxay ku tusinaysaa in dhinacyadu ay weli dhaqdhaqaaq wadaan oo hadalka suldaankuna uusan wax saameyn ah yeelan doonin. wuxuu ku soo kordhay saaxiibayaal wararkeena dambe ayaan idinkugu soo tebin doonaa bilow ilaa dhammaad. haddaad muuqaalka nala dhammaysatay aad baad u mahadsan tahay. soo dhawaada saaxiibayaal, muuqaalka like saar, subscribe channelkan. wararka iyo warbixinada halkan aan ku daabacnay si aad u heshid muuqaalka aad daawanaysa like saar. aragtidaada qaybta commentiga waxaad kaga dhibataa sida u aragtid in Cabdiraxmaan Ciro loo diiday safarkii uu ku tagi lahaa Tel Aviv. soo dhawaada saaxiibayaal.